munaasabadan oo lagu xusay maalinta caalamiga ee afka hooyo oo loo asteeyay 22 bisha Febraayo ayaa lagu qabtay xarunta Akademiyadda Fanka Cilmiga iyo Suugaanta ee magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay gudoomiyaha aqalka sare ra'iisul wasaaraha xukuumadda wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada xildhibaano qalinle iyo qoraayaal halku dhiga munaasabada oo ahayd afkaagu waa aqoonsigaaga ayaa waxa si wada jir u soo qaban qaabiyay Akademiyadda Goboleedka Afka Soomaaliga iyo Akademiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Dr. Maxamed Daahir Afrax gudoomiyaha Akademiyadda Goboleedka Afka Soomaaliga aga iyo Cabduqaadir Xuseen Maax gudoomiyaha Akademiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta oo munaasabada ka hadlaya xusay muhiimadda horumarinta afka Soomaaliga iyo dhaqanka uu leeyahay ummadda Soomaaliyeed مسؤولي الصوماليين يقولي حتى استطاعت علي وهو اسمع لما قال ومدرك يسلك في سلاطه يوم نظم الواحد واسع عرب انا شخصيا waxaan hayaa halkaan ay umadi markay burburto waxyaabaha laga soo nooleeyo waxa kamid ah odayaasha iga dambeey doona in dhaqankiisa afkooda xoog la saaro dawladdu waxaan ka codsanaynaa dhaqankiisa afka umadu ay leedahay Soomaaliyeed way burburtay si loo soo nooleeyo xoog la saaro ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ka hadlay munaasabada ayaa tilmaamay in dawladda Soomaaliya ay ahmiyad weyn siinayso xoojinta iyo dhaqangelinta afka Soomaaliga iyadoo taa laga duulayana miisaaniyada dawladda lagu daray dhaqaale lagu horumarinayo Akademiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta iyo 1 milyan oo lagu dhisayo xarunta Akademiyadda Goboleedka Afka Soomaaliga oo ay si wada jir u dhagax dhigeen sanadkii 2015 madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud annagu hadda haddii aan nahay dawladda uu hogaamiye madaxweyne Farmaajo go'aankeenu waxa uu yahay inaan xoojino luqadeena afkaada waa in aad ku faantaa ma aha inaad ka faanto luqadda kale waa luqad aad barato ama afaad barato laakiin afka keliya oo ku gabi karto waa afkaada kanaad ku heesi karto waa kaada sanadka 2018 miisaaniyadii Akademiyadda Fanka Cilmiga iyo Suugaanta kadib wada hadalkeennii in loo kordhiyay waxaan ugu soo aaday annaga inaan bixino lacag ah $1 milyan halkii milyan waxaan ku darnay miisaaniyadda 2018 aan hadda ku jirno oo la soo ansixiyay waxaana ku ballan qaadayaa gudoomiye in lagu siinayo halkii milyan madaxweyne Ismaaciil waxaan leenahay qaybteena waan ka soo baxnay kaalay aan dhisnay Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uga mahad celiyay dadaalka ay dawladda Soomaaliya ku bixinayso horumarinta afka Soomaaliga isagoo u jeediyay in dib u dhis lagu sameeyo tiyaatarka qaranka si fanaaniintu ay qayb uga noqdaan ilaalinta afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed ku soo jeedinayaa in laga faa'iideysto fanaaniinta Soomaaliyeed oo gacan la siiyo noloshooda wax laga qabto oo la soo kiciyo tiyaatarkiina in loo dhiso maalinta caalamiga ee afka hooyo ayay qaramada midoobay aqoonsatay 22 bisha Febraayo sanadkii 1999 markii ay soo jeedisay hay'adda UNESCO Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.